alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu joognaa ramadaantii baynu joognaa bishii khayr ka badnayd kollay axkaamteeda horaynu uga soo hadallay axkaamta ay leedahay hore ayaynu markaa uga hadallay waxaynu markaa tilmaamaynaa ramadaanta wakhtigeeda waa in la ilaaliyaa nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay anoo hurdaa waxa lay tusay buu idhi yacnii riya nebiga la tusay sala allahu alayh wasalam riyada nebiyaduna lama mid aha riyada dadka kale siduu cabdullahi ibnu cabbaasba uu yidhi xadiiska ibnu maajaha ru'ya alambiyaa'i waxyun riyada nebiyadu waa waxyi marka riyada nebiyadu waxyi weeyaan nebi ibraahim markuu ku riyooday inankiisii inuu gowracaayo waajib waxa ku noqotay inuu gowracaa la yimaado sameeyo ayaa waajib ku noqotay sidaas aawadeed buu isugu dayey inuu ficilkii fuliyo marka wuxuu idhi waxa lay tusay laba nin baa i kaxeeyey buuhi markay labadii nin i kaxeeyeen bay dabeedna waxay korsiiyeen buur dheer bay igu yidhahdeen buurtan kor ma kori karaan ku idhi nebigaa odhanaya sala allahu alayh wasalam waxay igu yidhaahdeen annagaa kugu caawinaynee kor dabeedna way igu caawiyeen buurtii baan koray waxaan maqlay qayla ayaan maqlay nebigaa odhanaya sala allahu alayh wasalam markaasay waxay igu yidhaahdeen markaan idhi maxay codadkani yihiin haada cuwaa'u ahli nnaar waa qayladii ahlunaarka ahlunaarka qayladoodii ay naarta ka qaylinayeen codadkaasi weeye qowm baa haddana lay tusay dad baa lay tusay dadkaasoo halkaa addimada seedaha boqnaha wax laga geliyey oo la soo laalaadiyey qowlalladana la jeexay mushaqaqatan ashdaaquhum qowlalladii inta la jeexay ayaa dhiiggu sidaa u dareeraya qowlalladana halkaa boqnaha inta wax laga geliyey baana la soo laalaadiyey markaasaan waxaan idhi waa maxay markaasaa la yidhi ulaa'ika aladiina yuftiruuna qabla taxillati sawmihim waa kuwa afuraayay iyagoo soonkoodii weli aanu xalaal noqonoo qorraxdii weli aynay dhicin kuwii wax iska cunayey ee wakhtigii ka hor dhacayay kuwaa weeyaan xadiiskaa waxaa soo wariyey nasaa'i baa soo wariyey fi lkubra ibnu xibbaanna waa soo wariyey waana saxiix marka wuxuu tilmaamayaa ruuxu inaanu soontii u hubsannin oo xilligii ka hor dhacaa inay ciqaab sababayso ciqaabtaa daran bal haddii maalintii oo dhan kii soomanaa oo xilligii wakhti yar ka hor dhacay cuquubadaa lagu ciqaabaayo bal maxaad u malaynaysaa kii cudurdaar la'aan isaga cunayey ee isaga cabbayey iska afurayey ee aan soomaynba ama odhanayay xalay suxuurtii baa ila tagtayoo dee maanta maan soomin yaa kaasna talow ciqaabtiisu intay noqonaysa kii daqaa'iq ka hor maray xilliga ayaa cuquubada noocaasa la ciqaabayaa sida xadiisku sheegaayo kii waxa weeye dee maalintii oo dhan isaga badheeray kani waxaa dhici karta uma badheerin laakiin hubsadkii ay ahayd inuu u hubsado ayaanu u hubsan marka waxaa weeye aad iyo aad soonta ha loogu dadaalo ha la ilaashado soonta waxyaalaha soonka jebinaya aad ha looga taxadiro xubnaha inaynu ka soonno aan ku dadaalno dembiyada aan iska ilaalinno oo hadday markaa tahay xanta hadday tahay beenta hadday tahay dadka in la dhibo hadday tahay dadka in la caayo hadday tahay baayac mushtar qaldan oo dembi ah in lagu baayac mushtareeyo hadday tahay salaadda in la dayaco waxyaalaha markaa shareecada dembiga ku ah aad iyo aad ha laysaga jiro yacnii si aynu dembidhaaf u helno bishani waa bil dembidhaaf waa bil naar ka xorayn fadligeeda horaynu u soo sheegnay fadaa'il badanna waa ku soo aroortay marka aan ka faa'iidaysanno fursadda hadda ayaynu joognaa aad iyo aad taas yada aan uga faa'iidaysanno yaan markaa waxa weeye ha laystiilo
yacni waxaa dhici karta dadka qaarkood xoogaa intay caajisaan inay qiyaamkii ay habeenkii tukan lahaayeen yacni inay ka caajisaan oo ka wahsadaan baa dhici karta marka waxa weeye ha laystahbiibo aad markaa ha laysugu taxallujiyo inkastaad markaa waxay dhibaato badan tahay ama aad markaa waxa weeye tabcaannimo dareemayso dee dadkaa tabcaannimo badan baa dadaalaya waa idinka arkay odayaal gaboobay oo dee da'ahoo dirqi ku kacaya ayaan salaadda markaysa markaa waxaan awal iyo aakhir ka baxay mar walbana safka hore ku tukanaya innagii xoogga ahayna yacni salaaddii waa ka habsaamaynaa marka waxa weeye aan ku dadaallo salaadda aan ku soo dadaallo yaynaan marka caajisaynu ka caajisnay uga tegin cibaadadiiyo khayrka ramadaan dambe inaynu gaadhi doonno kama warqabno tan baynu hadda joognaa fursadda hadda aynu joogno aan ka faa'iidaysanno fursadda hadda aynu joogno aynu ka faa'iidaysanno marka waxa weeye taas yada aad ha loogu dadaalo istikfaarka iyo tawbadda iyo taana aad ha loo badiyo in ilaahay la dembidhaaf weydiisto qur'aanka akhriskiisa ha lagu dadaalo akhriskiisa ha lagu dadaalo waa tii waciidkiiyo goodigu ku soo arooray kii waxa weeye ramadaan u soo gashay ee aan loo dembi dhaafin jibriil waa habaaro wuxuu ku habaaray in ilaahay naarta ku fogeeyo oo ilaahay kaa fogeeyo nebi maxamedna wuxuu ku yidhi waxaad tidhahdaa aamiin nebi maxamedna aamiin buu yidhi marka malak muqarraboo xagga ilaahay loo dhoweeyey iyo nebi mursala ayaa midna ku ducaynaya midna aamiin leeyahay oo ilaahu aqbal u leeyahay dembidhaafka ilaahay baa haya laakiin sababtii laynoogu dembi dhaafi lahaa innagu aan la nimaadno taas yada aan ku dadaallo marka kelmaddaa yare kooban baan kaga baxayaa haddii ay jiraan as'ilo kollay ku saabsan ramadaanta in sha allahu tacala waa isku dayaynaa inuu ka jawaabno wallahu aclam haye su-aashu waxay ku saabsantahay saa maqlayseen meel la deggan yahay ayaa waxa ku sugan meel hoosay ku taallaa ama buuro ayaa ka jira xagga galbeed ee qorraxdu ka dhacayso marka qorraxdu iyaga ay ka qarsoonto ka libidho ayay markaa addimayaan oo ay afurayaan mise beledo kale oo marka waxa weeye degaankoodu ay ku dhow yihiin ayay markaa la hadlayaan oo waraysanayaan o odhanayaan qorraxdu ma dhacday jawaabtu waxay tahay waxay iyagu ku kaaftoomayaan qarsoonka qorraxdu ay ka qarsoonto mana diran inay dad kale markaa waxay la hadlaan oo yidhaahdaan qorraxdii ma naga qarsoontay yacni magaalo kale ama tuulo kale inay la hadlaan oo yidhaahdaan qorraxdii ma naga qarsoonto oo ma idinka dhacday inay sidaa yidhaahdaan mid loo dirtay ma aha waxayna noqonaysaa min baabi takalluf haddii waxa weeye iyaga ay ka dhacdo oo aynay markaysa waxaan meeshan aynay ka muuqan oo yacni ay markaa waxa weeye magaalada la deggan yahay yacni aynay yacni markaa ka muuqanin makaan ka mida amaakin kale inay la hadlaan mid loo dirtay ma aha waxay noqonaysaa inay ku camalfalaan inta markaa ay og yihiin taas yadaa inay ku camalfalaan ayaa ku filan wallahu aclam gabadhii uurka lahayd maxay samaynaysaa hadday soonkii awoodi weydo jawaabtu waxay tahay aan ku horreeye hadday awoodi karto inay soonto gabadha uurka lihi oo dhibi aynay ka imanayninoo nafteediiyo ilmaha toonna u baqin tii isjaqsanaysayna ay soomi karto oo ilmaha ay ka soomi karto inay soomaan baa waajibku yahay waana soomayaan hadday awoodi kari waayaan oo ilmaha ay u baqaan ama ilmaha iyo naftoodaba ay u baqaan xaalka caynkaasa waa afurayaan inay soomaanna markaa uma bannaana waayo dee idraarka cid ay dhibayaanoo ilmahan yar ay dhibaataynayaan mid u bannaan maaha ilmahan yarina waa mid macsuumoo yacni sharcigu uu dhiiggiisa dhowray oo in la dhibaateeya ma bannaana nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar wuxuu kaloo ilaahay yidhi qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm
yacni waa khasaareen kuwa ubadkooda aqoon darrada ku laynayay waa khasaareen baa ilaahay yidhi marka ilmihii in la dilaa ma bannaana oo yacni loo sababo inuu ilmihii sidaa ku soo dhaco dhicis noqdo oo gaajadu ay soo riddo amaba waxa weeye isagaan wax kala qaadanaynin oo naaskii aan ka maarmi karayn hooyadii ay ka soonto hooyadii ay ka soonto aynay arrinka noocaasana xamilayn ee waxay noqonaysaa waajibku inay afurtay noqonaysa haddaba markay afuraan oo ay cunaan oo cabbaan ramadaantii afuraan cudurdaarkaa daraaddeed maxaa hadhow ku waajibaya culammadu aqwaal badan bay mas'aladaa ka leeyihiin oo aad bay isugu khilaafeen culamo yidhaahda qadaa keliya ku waajibaya culamo yidhaahda xaalaadka qaarkood haddii nafteeda aynay u baqine ilmaha keliya u baqdo qada iyo fidye waa inay israacisaa culamo tidhaahda markaa labada kala saarta xaamilka iyo murdica oo yidhaahdaan xaamilku nooc marada inuu yahaan ictibaarinaya sida imaam maalik oo waxa weeye isaga qadaa unbaa ka waajibaya laakiin ta murdicee wax nuujinaysaa iyada markaa waxaa ka waajibaya qadaa iyo fidye wada socotaa ka waajibaya qaar yidhaahda fidye keliya mid walba ka waajibaysa qaar yidhaahda midnaba ka waajibi mayso oo daahiriyadu ay sidaa ku tagtay ibnu xasmi iyo calaa kulli xaal laakiin aqwaashaa waxaa ugu roon laba qowl qowl odhanaaya qadaa keliya ku waajibaya oo aan fidya la socon iyo qowl odhanaaya maye fidye keliya ka waajibaya fidye qura ayaa ka waajibaya culammada badankoodu waxay mareen in qadaa ka waajibayo qadaagu lagama maarmaan yahay laakiin culammada qaarkood in fidye keligii ka waajibaysay ku tageen waana sida saxaabada qaarkood laga soo wariyo cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaas waa siday fatwoodeen walaa yuclamu lahumaa mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada ka mida oo khilaafsanna lama oga cid saxaabada ka mid oo sidaa ku khilaaftay lagama warqabo markaa sidaas aawadeed saxaabigu hadduu mas'alo fatwoodo oo cid kaloo saxaabada ka midoo ku khilaaftay aan lahaynna waxay noqotaa daliil bay noqotaa waa la daliishadaa waa xujo sharciya ayay noqonaysaa markaa sidaas aawadeed wejiga ugu fiicani waa in la yidhaahdo fidye qura ayaa ku waajibaysa oo raashin inay bixiso oo ay siiso miskiin maalin walba quudiso ayaa waajib ku noqonaysa qallana ma saarna cala alqowli araajix qowlka qawiga ama raajixa marka lagu socdo wax markaa qalle la yidhaahdaa ma saara sidaasaa ugu qawisan daliil ahaan qowlka ugu qawisan weeye waxaa markaa laga yaabaa in la yidhaahdo qadaaga maxaa looga ridayaa dee qadaagii laftiisii waa adkaan karaayo oo imka cabdullaahi ibnu cabbaas iyo markay fatwoonayeen waxay yidhahdeen anti bimansilati aladiina laa yudiiqu kuwaan waxba kari karaynin oo aan soonkii awoodi karayn baa la maqaam tihiin oo la mid tihiin calayki aljazaa'u walaysa calayki alqadaa'u yacni fidyaa ku saaranee qadaa kuma saara waxaa la yaab badan mashaayikhda qaarkood oo shaaficiye iyo xanaabilaba ahi inay markaa leeyihiin fidye inaannu saarnay marka ilmaha keliya ay u baqdo waxaannu ka qaadanaynaa asarka ibnu cabbaas iyo ka ibnu cumar baannu ka qaadanaynaa qadaagana kamay hadlin oo way ka aamuseen oo daliil kaleannu u raadsannay oo daliil kale markaan u raadsanayna qadaagana saasaan u saarra dee sidaasina sax ma ahoo qadaaga way ka hadleenoo way nafiyeen ma aha qadaaga kamay hadlinoo salban wa iijaaban waxba kamay sheegin ee way nafiyeen cabdullaahi ibnu cabbaas marka mashaayikh kibaaroo waaweyn baa waxay leeyihiin yacnii fidyada waxaa noogu daliilah asarka ibnu cumar iyo asarka ibnu cabbaas haddana shadri ka mida yacni markaa may qaadan oo waxay yidhahdeen kamay hadlin waxaa dhici karta in waxa weeye arrinka noocaasi sahwi inuu uga dhacay baa laga yaabaa markay qorayeen kutubta sidaa ku qoranna xifdigooda iyo sida maskaxdooda markaa ku sugnaa iyagu ay qaybsanaayeen ay qorayeen dabeedna markaa mas'aladaa ay ilaaween
wa ilaa aahaarta saxiixee ka soo aroortay daaraqutni waghayruhu soo wariyey asaaniid saxiixa ku soo aroortay waxa ku sugan iyagoo qadaaga nafyinaya ku sugan. marka in asarkii la deliishado shatri ka midana laga tagaa dee sax noqon mayso, sidaas yada abay khalad u tahay. qadaagina waa tacasuri karaayoo gabadhii waxa dhici karta marna inay uur leedahay, marna inay isjaqsanayso. marka goormay qallaysaa? 10 sanaa laga yaabaa inay sanad walba yacni markaa ay marna isjaqsanayso marna wax nuujinayso. goortay qallaynaysaa waa goorma? ma goortay ubadka markaysa markaa dhalmada joojisa miyaa? xaaladdaasna dee inteebaa isku gaadhay ramadaan? yacni cusri baa ku jira. yusrigii shareecadana sida waafaqsani waa sidan, oo diintu waa yusri. yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra. laka uun iska raacayo o odhanaya anigu culammadu halkay u badan yihiin baan iska raacayaaye anigu markaa waxyaalaha laga qaatay iyo markaa dee taa ma garanaayo, waxay noqonaysaa markaa inuu daqallaaga ku kaaftoomo qallaha. laakiin inuu markaa iskaga dhiirado u yidhaahdo qowl daciifa weeye, qowlka markaa ibnu cabbaas iyo ay yidhaahdeen yacni markaa tan noocaasa inuu iskaga dhiirado sidaas yada ay yidhaahdaa yacni waxa weeye tan noocaasa mid munaasiba ma aha. marka waxa weeye calaa kulli xaal fidye keliya ayaa marka ay noqonaysaa inay bixiso qowlka raajixa. haddayse ku xasili weydo oo niyadeedu ku degi weydo qallo keliya ha la timaado, waxba labadayana isku darin. wallahu aclam. su-aashu waxay ku saabsantahay saa maqlayseen, ninbaa bisad buu dilay, bisaddaasina waxay ka cuntay digaagad bay ka cuntay, soonkaygu wax mayga noqonayaa buu yidhi. jawaabtu waxay tahay bisadda marka in la dilo ma aha, waa in marka waxaweye la ilaashado oo digaagadda iyo marka waxyaalaha ay yacni qofka ka cuni karto waa inuu isagu ka xafitaa oo ka ilaashadaa. laakiin inuu dilo tan noocaasa ma aha. bisadduna waxa weeye marka hore xayawaanaadka la dilaaye ee sharcigu yidhi dila kama mid aha. marka sidaas aawadeed yaanu dilin, yacni arrinka noocaasoo kale yaanu samayn. taas hadda marka waxa weeye uu sameeyey dib yaanu ugu noqon. laakiin wax markaa hadda kafaaro oo ku laazimaya taas yadaa waxaway ma ogin, taas yadaa ma ogin. dadka qaar baa waxay yidhaahdaan bisad haddii la dilo waa in mafiiqa masjidka la geeyaa. warka noocaasi wax sugan ma aha. mafiiqa ha la soo iibiyo masjidka ha la geeyo daliil ma leh, wax daliila ma leh. qofku hadduu ku dembaabo bisaduu dilay waxay noqonaysaa ilaahay inuu u toobad keeno, laakiin yacni kafaaro ka waajibaysaa ma jirto. wallahu aclam. su-aashu waxay ku saabsan tahay ruux baa caloosha xanuunaysaa, marka xanuunkiisu dee ma darna, laakiin waxaa markiiba lala gaadhayaa baqashada xanuunka laga baqanayo daraaddeed in falaajiil markaa lagu xidho oo xididka laga siiyo ayaa markaa lala gaadhaya. tan noocaasi soontii wax ma yeelaysaa? jawaabtu waxay tahay tan noocaasoo kale kolle culammadu waa isku khilaafaan. shay muqadiya ma aha oo qofkii cunto yacni jidhkii nafaqaynaysa yacni keensanaysa. laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin wixii dee caloosha gaadhaba waxay ka dhigayaan in markaa xukunkaas ay yeelanayo jawfka wixii tagaa yacni xukunkiisu saasuu noqonayaa bay leeyihiin. calaa kulli xaal laakiin haddii mar muqadi aynay ahayn sida kolley culammada qaarkood ay u badiyaan waa inaan soonkii jabaynin. laakiin hadduu ka fursan karo oo sugi karo ilaa afraadda waa inaanu ku degdegin ixtiyaadka isagoo raacaya daraaddeed. wallahu aclam. su-aashu waxay ku saabsan tahay ruux baa markaa waagii ka caddaaday oo soonkii ma niyeynin. marka mar hadduu waagii ka caddaaday oo soonkii aanu niyeyn maalintaa miyuu iska cunayaa mise waa iska afxidhnaanaya? jawaabtu waxay tahay marka hore waa inuu ruuxu aanu markaa niyada la sugin. sidaynu horeba u sheegnay soo dhowaadkaad niyayn doontaa waa inaanu is odhan marka hore niyo waa inuu ku seexdaa soon ah oo maalin waloo ramadaana waa in markaa habeenkeeda u niyaysan yahay inuu markaa soomi doono oo jaazim ay ka taho arrinkaasi ka go'anya agtiisa. niyadana talafud iyo ku dhawaaq looma shardiyo. niyadana ku dhawaaq looma shardiyo. muxuu diyaarsanayaa? aad ku suxuuratid oo aad soontid
dee niyadii intaasaa ku filan inuu soomaayo. laakiin hadduu isleeyahay haddaad suxuurta u kici weydo ha soomin, dee markaa niyadii isagaa iska buriyey. laakiin haddii markaa talagalkiisu yahay inuu soomo ilaaba ilaa suxuurta ha u kaco ama yaanu u kicin, waxay noqonaysaa soonkii waa u guntan yahay, waana niyeeyey, niyadii waa u dhacday, sidaasuu ku sooman yahay, sidaas ayuu ku sooman yahay. ama hadday dadka qaarkood dhacdo inaynay markaa niyeynin, dee maalintaas soonkii uma jiro. laakiin xurmada maalinta la xurmaynayo daraaddeed waxaa noqonaysaa inuu afhaysto aanu waxba cunin, oo cunitaanka uu wax cunayaa wuxuu noqonayaa mid waxa weeye aan u bannaanaanayn buu noqonayaa. waa afhaysanayaa, imsaak buu la imanayaa, sida xadiiskii caashuuradaba ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam, dadow kii waxa weeye markaa soomay ha soomanaado, kii aan xalay soomin oo niyeyna yacni falyasum baqiyata yowmih. waxaa loo jeedaa ha afhaystaa loo jeedaa, ha soomo maalinta inta ka hadhay, wax dambe yaanu markaa isku dayin baa loo jeedaa. waagii horena caashuuradu waxay ahaan jirtay, waajib bay ahaan jirtay intaan ramadaanta la waajibin. wakhtiga uu nebigani hadalka yidhina waxay ahayd qabla fardi ramadaan. sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa in imsaak lala imanaayo. xataa culammadu waxay ka hadlaan ruuxii cudurdaar lahaa oo cudurdaarkii ka zuulay maalinta dhexdeedii, inta hadhay waa inuu afhaystaa ayay markaa waxay culammadu ka daliishadaan. ruux baaba musaafir ahaayoo safar buu ku maqnaa, safarkaa daraaddeed buu afuray, dabeedna wuxuu yimi iyadoo markaa waxa weeye maalintii kala badhan tahay buu markaa gurigiisii yimi. cudurdaarkii safarnimo waa ka suulo, hadda waa muqiim. muxuu samaynayaa? intaa waxa weeye ka hadhay waa afhaysanayaa oo waxna cuni maayo, waxna cabbi maayo, waayo sababtii u bannaysay cunitaankii iyo cabbitaanku way suushay. waalxukmu yaduuru maca cillatii wujuudan wacadaman, wallahu aclam. su-aashu waxay ku saabsan tahay qofku isagoo sooman hadduu cid caayo ama wax xanto, soonku ma ka jabaya mise kama jabayo? jawaabtu waxay tahay culammada daahiriyada sida ibnu xasmi iyo waxay leeyihiin soonku waa ka jabaya, oo macsi kastaa soonka jebinaysa. laakiin culammada badankoodu siday ku tageen salafan wa khalafan, salaf iyo khalafba, oo afarta madhaboodna ay ka mid yihiin, waxay ku tageen inaan soonka macaasidu burinaynin ee ajarka ay nuqsaaminayso. saasay ku tageen. waana ta imaam axmed ibnu xambal uu yidhi haddii macsi kastaa soonka jebinayso, wax sooni inooma sugnaadeen. markaa sida saxdii waxay tahay waa inaan soonku ku burayn ee sawaabkiiyo ajarku ku nuqsaamayo, sida xadiiskiiba nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam, man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah. ruuxa markaa waxa weeye aan ka tegin hadalka beenta ah iyo waxa baatilka ah iyo macaasida iyo dembiyada samaynta la samaynayo, ilaahay dan kama leh inuu cuntadiisa iyo cabbitaankiisa iska daayay, wax dana ilaahay kama leh. ilaahay wuxuu u baahan yahay ma jiro, waa qani ilaahay. ee waxaa loo jeedaa hawaab iyo ajar weyn kuma bixinayo oo kama raalli aha baa looga jeedaa. ajar weynna kuma bixinayo ayaa markaa looga jeedaa. marka qowlka saxiixi wuxuu yahay soonkii ma buraaye, ajarkii baa ku nuqsaamaya xanta iyo dembiga, wallahu aclam. su-aashu waxay ku saabsan tahay qof baa wuxuu doonay oo go'aansaday soonka inuu jebiyo, dabeedna markii dambu haddana ka walaacay ama wuxuu cunaa buu waayey, dabeedna markaas waar iska soomano. soonkiisii ma ka jabay mise kama jabin? bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin qaطcu niya mar hadduu la yimi soonkiisu waa ka jabay leeyihiin, oo niyadu marka hore ha ahaato mid horrayse wax khilaafsani waa inaanu ku soo darin ee istisxaab ay ku sugan tahay. ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin mar haddaanu shay mufatira la imanin soonku kama jabayo. marka calaa kulli xaal yacni maadaama ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen qaطcu niya inay jebinayo soonka,
khilaafka isagoo ka fogaanaya waa inuu aad isaga ilaaliyaa oo marka horeba qatcu niyo inaanu markaa la imanin waa inuu markaa ku sugnaadaa oo niyadaa uu ku daa'imaa ku istimraaraa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay carruur yar baa la suxuuriyey oo waa la soomiyey markii dambey adkaysan waayeen markaasaa la afuriyey ajar ma ku helayaan tan noocaasa waalidkii iyo ilmahuba sunnadana ma ku sugantay oo hadalka ku daray sunnada nebiga sala allahu alayh wasallam ma ku sugantay calaa kulli xaal amarka carruurta la amrayo aan qaangaadhka ahayn soonka la amrayaa waa litadriib oo waa si loogu tababaro oo iyaga inay sameeyaan soonkii sunnay u noqonaysaa waalidkuse inuu amraa waxay noqonaysaa hadday xamili karayaan mid salaaduu amraayey la mida muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin haddii markaa ay soomiyaan oo sidaa uu ku niyeeya ilmihii oo la yidhaahdo niye oo sidaa ku soon waalidkiina kula dadaalay ajar waa ka helayaa isagana iskudayga uu isku dayey waa laga ajar siinayaa laakiin hadduu xamili waayo la afuriyo ajar waa lagu helayaa laakiin ilmuhu ajarkii soomka ma helayo ee iskudayga uu isku dayaa laga ajar siinaya ila waa camal khayra iskudayga uu isku dayey ee uu niyeeyey ee uu xaawilay ee deedna uu kari waayey inta ajar waa ku helayaa laakiin ajarkii maalinta soonkoo dhammaystiran ma helayo waalidkuuse falahu maa nawaa inuu wada soomanaado hadduu u niyeeyey oo markay muuqato inay dhib ku taho aanu xamilayna afuriyey yacni ajar dhammaystiran buu in shaa allahu tacaala ku helayaa wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shakhsi walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyaa u sugnaaday waxaanu niyeeyey maalintaa inuu ilmahani soomanaado awalow aakhir saasuu niyeey hadday dhici weyday niyadiisii baa loo qaadayaa loogaga abaalmarinayaa waalidka wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsanayd ruux baa wuxuu niyeeyey ramadaantu markay soo dhoweyd inuu ramadaantaa soomo habeenkeedana kaco dadaal acmaasha ramadaanta lagu dadaalo inuu si fiican uga qayb qaato ugu dadaalo saasuu ku talagalay dabeedna waxaa iga soo hormartay buu yidhi shaqo tag baan ahaa markay ramadaantu soo dhoweyd oo 5 maalmood ka harsanayd ayaa shaqo la soo xayeysiiyey shaqadii baan dabeedna markaa waxa weeye helay buu yidhi shaqadii markaan helay camalkii sidii aan u niyeysnaa ula wada iman kari waayo waa tan safarra iyo shaqadii la gashay maxay noqonaysaa markaa xaalkaygu muxuu noqonayaa ajarkii maxaan helayaa jawaabtu waxay tahay ruuxu markaa khayrka uu niyeeyey go'aansado cudur daar ama safar uu ka soo dhex galo ama caadadiisuba ay ahayd inuu saa sameeyo markana uu niyeysan yahay sidii inuu sameeyo yacni ruuxa muqiimka ee saxiixa ahi waxa uu samaynayo ayuu markaa la ajar noqonaya waxaa la mid ah ruuxii xanuunsanayey caadadiisu waxay ahayd inuu camalkaas sameeyo dabeedna waa xanuunsaday niyadiis iyo go'aankiisuna wuxuu ahaa hadduu awoodi karo inuu samaynayo dabeedna wuu samayn kari waayey sunnayaashii qaarkood markuu la iman kari waayey muxuu markaa noqonayaa ajarkiisu nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam ruuxu wuxuu samayn jiray hadduu safro ama xanuunsado waxaa loo qoraa markuu muqiimka ahaayee negaa ee uu saxiix ahaayee caafimaadka qabay camalkuu samayn jiray oo kalaa loo qoraa xadiis saxiixa ku soo arooray xadiis saxiixa ayaa ku yimi oo ku soo arooray marka waxa weeye inta isagoo ruuxu safar u yahay haddana camalka wuxuu kari karayo waa inuu ku dadaalaa oo ruuxa markaa musaafirka ahi qiyaamuleyl waa la iman karaa saxaabada nebiguna sala allahu alayh wasalam iyagoo safar ku jira ayay qiyaamuleyl la iman jireen marka hadduu awoodi karo qiyaamuleylka oo fursaddu ay u saamaxdo waa inuu ku dadaalaa sida xadiiskii sheegaayey marka waxa weeyaan nebiga sala allahu alay wasallam iyo saxaabadiisu in waxa weeye meel ay habeen degeen dabeedna marka ay seexanayeen nin baa yidhi anaa idin ilaalinaya ninkii wuxuu u kacay qiyaamuleyl oo salaad buu tukanay ciidan gaalo oo gaado ah baa dabad yimi ciidankii gaalada ahaa ayaa dabeedna ninka taagan bay arkeen ninkii bay markaa riddo ku soo rideen leeb bay ku soo rideen
leebkii baa ku dhacay isagina wuxuu karaahiyaystay salaadda inuu gooyo dhiiggii baa ku duulay markaasay dhiiggii bay ku baraarugeen marka waxa weeye nebigu ma odhan dee musaafir baa tahaye maxaad qiyaamuleyl ula imanaysa marka qiyaamuleylka waa lala iman jiray oo waa la samayn jiray witriga waa la samayn jiray yacni waxa weeye labada ragcadood subaxa ka horraysa waa lala iman jiray yacni duxada nebigu wakhtiyada qaarkood waa tukan jiro fatxu maka sannaddii waa kii tukaday salaaddii duxada marka waxa weeye khayrka wuxuu qaban karo isagoo musaafiraba waa inuu qabtaa oo ku dadaalaa xagga marka afuraadduna waajib ma noqonayso inuu afuraa haddii waxa weeye aynay dhibaato badan ku keensanaynin hadduu musaafir yahay dhib badanna soonku ku keensanayo xaaladda noocaasa afuraaddu waa ku waajibaysaa laakiin haddaan dhib badani ku keensanaynee soonka uu xamilayo hadhowna ayba dhici karto qalluhu inuu ku adkaado sida dadka qaarkood dhacda waxaaba afdal u ah inuu iska soomanaado isagoo musaafir ah hadduu qalluhu hadhow ku adkaanayo iminkana soonka uu xamilayo isagoo musaafira inuu iska soomanaado ayaa afdal u noqonaysa laakiin haddii aanu qalluhu hadhow ku adkaanaynin soonkana uu kari karayo xaalka caynkaasa culammada qaarba mid bay arjaxaan qaar yidhaahda waxa weeye rukhsada in la qaataa afdal ah wa ina allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kama yuxibu an tu'taa cazaa'imuhu oo rukhsada in la qaataa marka afdala bay leeyihiin culammada qaarkoodna sida kaley marayaan culamada qaarkoodna waxaabay ka dhigeen sawa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay saa maqlayseen magaalada shubanbiyoodku ku dhaco dadka ma loo diidaya oo karantiimo ma lagu samaynaya dadka se xanuunsanayo shubanbiyoodku hayo ma la soo booqan karaa jawaabtu waxay tahay waa la soo booqan karaa dhibi kuma sugna laakiin ixtiyaadaadka waa in la isticmaalaa oo waxaa laga qaadanayaa dadaalka xanuun iska ilaalinta waa in la sameeyaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa u yimi nin xanuunka judaamka la yidhaahdo qaba judaamkana nebigu wuxuu ka yidhi sala allahu alayh wasalam fira min almajduumi firaaraka min alasad ka xanuunka judaamka la yidhaahdo ama hudhaagaa qaba waxaa uga carartaan sidaa libaaxa uga cararaysaan oo kale uga carara ninkii judaamka qabay markuu nebiga u yimi isagoo doonaya inuu la baayactamo wuxuu nebigu ku yidhi irjic faqad baayacnaak halkaagaa ka noqo waa kula baayactannay baycadu halkaagay kugu timi xadiiskaasina waa saxiixoo wuxuu ku sugan yahay fii saxiixi muslim marka laa yuuradu mumridun calaa musixin adillo badan baa soo aroortay oo mawduuca ku saabsan marka waxa weeye waxay noqonaysaa in waxa weeye adiladaas ixtiyaadka sheegaysa iyo iska ilaalinta in waxa weeye markaa la qaato oo lagu camal falo ayay markaa noqonaysaa aad laysu jiro waxaa caan baxday in la yidhaahdo xanuunkan shubanbiyoodku waa daacuun warka noocaasi daacuunkii axaadiistu sheegay ma aha marka warkaasi musallam ma aha daacuunka ku soo arooray axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ku soo arooray shubankan ma aha waa xanuun finanna leh oo degdeg wax u dila weeye oo nebigu wuxuu ku sheegay daacuunku inuu yahay lahu guddatun ka guddati albaciir marka waxa weeye calaa kulli xaal waa nooc markaa xanuun ah kani laakiin daacuunkii axaadiista ku soo arooray ma aha sidaas aawadeed axaadiista sheegaysa idaa samictum bihi biardin yacni haddaad dhul ku maqashaan falaa taqdamuu calayhi dhulkaa ha tegina haddii uu dhul ku dhaco idinkoo ku suganna ha ka bixina cararaa ka cararaysaan axaadiistaasi ku degi mayso haddayba dhacdo meel daacuun inuu ka dhaco daacuunkii sharcigu sheegay bixista laga baxaa xaaraan ma aha ee waxaa loo diidayaa inuu ka baxo ruux cararuu ka cararayo xanuunka inuu uga baxo waidaa waqaca biardin wa antum biha falaa takhrujuu firaaran minhu ha ka bixina cararaa ka cararaysaan daraaddeed carar laga cararaayo haddaan looga baxaynoo qasadkaa aan bixitaanku ahayn oo safar u qorshaysnaayoo dan kale uu u baxayo ee cararuu xanuunka ka cararayo aanu u baxaynin inuu baxaa waa u bannaan tahay inuu baxaa waa u bannaan tahay wax dhibina kuma sugna laakiin waxaa la diidayaa in markaa waxa weeye loo baxo carar laga cararaayo marka calaa kulli xaal xanuunkani daacuunkii ma aha
waa arrin faafayun inuu daacuunun yahay yacni daacuunka sharciga ku soo arooray kan waa ka duwan yahay yacni waxa weeye kan ma aha sifadanna marka waxa ma laha ta kale waxa weeye waana dilaa aad wax u dilo dee tarab buu dadka u dilaa ma aha markaysa waxaan midhadh baa dhinta iyo 10 baa dhinta iyo 20 baa dhinta iyo 100 baa dhinta maahe kumaan buu markaa dilaa kumaan kun ayuu dilaa waqtigii saxaabada waa tii qaarkood u dhacay sida taacuun camwaas waxa la yiraahdaa 70 kun ma ku dhintay yacni waxa weeye dilaaga uu sida wuxuu dilaa xanuunka taacuunku waa mid aad iyo aad u daran waxaanu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam taacuunka ruuxa u dhintaa inuu shahiid yahay wakadalika ruuxa caloolana inuu shahiid yahay nabigu sheegay waa hadduu iimaan iyo ixtisaab iyo ajar iyo sabir la yimaado ajar inuu niyeysan yahay marka halla sabro halla adkaysto xataa nabigu ummadiisa waa ugu duceeyey taacuunka waa arrin aan la yaabi doontaane inuu ummadiisa taacuun ku dhaco nabiga ugu duceeyey oo xadiis baa waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam allahumma ij'al fanaa ummatii bitta'ni wattaacuun ilaahu ummadayda waxaad ku layso waxaad ka yeeshaa bitta'ni waran yaa la laayo iyo taacuun ay taacuun u dhintaan xadiisku waa saabis sheekh albaanina wuxuu tilmaamaya xadiisku inuu qawi yahay saasuu tilmaamaya saas aawadeed baa fuqahada qaarkood markay yidhaahdeen daacuunka ma laga ducaynayaayo ma la odhanaya ilaahu daacuunka naga qaad ay yidhaahdeen waa qalad in laga duceeyaa waaba shahaadadii sawtii markaysagaa nebigu ummaddaabuu ugu duceeyey ummadda ayaabuu ugu duceeyey marka waxa weeye calaa kulli xaal kani daacuunkii ma aha kanna waxa weeye waa calool xanuun weeye fadli markaa shahiidnimo waa lagu helayaa ruuxii u dhinta sabir iyo ixtisaab uu sabrayo ajar niyeysanayana la yimaada oo aan qadarka ilaahay raalli ku noqda oo ku sabra fadli shahiidnimo waa ku helayaa wallahu aclam su'aasha hore waxay ku saabsan tahay ninbaa wuxuu yidhi ramadaantii hore maan soomin mana qallayn waana qallayn karay tii kalena hadda waa ku jiraa maxay saaran jawaabtu waxay tahay soonka aanu soomin ha ka toobad keeno ilaahay ha u toobad keeno bisha aanu soominna ha qalleeyo oo qallihii ha la yimaado waliba culammada badankoodu waxay leeyihiin waa inuu raashinna ku daraa oo maalin kastaba miskiinna quudiyaa oo miskiinna cunto siiyaa maalintiina soomaa yacni 30kii maalmood bimacnaa bishii tagtay ee aanu soomin ha qalleeyo maalin kastana beddelkeedii tafwiidka uu sameeyo wakhtigii qallahana uu dhaafiyey taana markaa waxba raashinnaha ka bixiyo su'aasha kale waxay ku saabsan tahay gabadh ayaa markay uurka leedahay may soomi jirin inayna awoodi karayn daraaddeed ay u qabtay ay isleedahay qallee raashinna bixi marka waxay aaminsanayd inay qallaysana raashinna bixiso dabeedna manay soomin raashinkiina ma bixin 10 ramadaanna sidii bay ku soo wareegeen hadday u soo gacan bannaanaatay maxay samaynaysaa ma 10 bilood bay qallaynaysaa mise raashin may bixinaysa dee culammada jumhuurku waxay leeyihiin waa inay qallaysaa haddii waxa weeye ay ilmuhu keliya u baqdayna waa inay ku dartaa weliba fidyana ku dartaa waliba markaa tafwiid kalena waa ku jiraayo dee muddada badana ay dib u dhigtay calaa kulli xaal mar hadday sidaas aaminsanayd qallaha waxay ka kari kartaa ha samayso iyadoo ictiqaadkeediiyo siday ku kalsoon tahay ku camal falaysa fidyana ha ka wada bixiso wakhtigaasoo dhan fidya ha ka wada bixiso 10 biloodba wallahu aclam su'aasha hore waxay ku saabsan tahay qof weyn oo da'a oo aan soomi karaynin oo wax uu raashin ku bixiyana aan haysanin muxuu yeelayaa haddaanu awoodi karayn soonkii soon inuu soomaa dee ma suuroobayso raashinka inuu bixiyaa waajib ku noqonaysay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin marka fidyadii yacnii ku waajibaysay inuu fidyo bixiyo siduu u kari karo waa inuu ugu bixiyo wixii ku caawiyaana waxay ka helayaan ajar bay ku helayaan siduu u kari karayana ha uu bixiyo wallahu aclam tan kale ee ku saabsan ruuxu isagoo suxuurtii wada cunaya
haddii adaankii dambe loo addimo muxuu yeelayaa? miyuu iska sii wadayaa mise waa joojinayaa? hore waa uga jawaabnay marar dhowra. mas'aladaasna waa mas'alo kollay khilaaf ku sugan yahay oo daa'ifo culammada ka mida ay leeyihiin waa iska sii wadaya ay leeyihiin. laakiin jumhuuru ahlilcilmi siday qabaan, culammada badankoodu siday qabaan oo 4 madhaboodna ay ka mid yihiin, waxay leeyihiin lama sii wadayo ee waa la joojinayaa. waxa afka lagu hayana waa la tufayaa ee lama liqayo. taasi waxay ku saabsan tahay hadduu adaanku xilligeeda dhaco. laakiin haddii la og yahay adaankii xilligii inuu ka hor dhacay oo iyadoo weli waagu aanu dillaacin la addimay oo laga hor dhacay, amaba malaha loo badinayo in laga hor dhacay oo yaqiin looma hubo ee danniga qaalibka waxaa loo badinayaa in laga hor dhacay, xaalka caynkaasa in la joojiyaa laazim ma aha ee waa la sii wadayaa. culammada qaarkoodna xadiiska xaaladdaasay ku xambaareen. xadiis baana soo arooray sheegaya idaa samica axadukum annidaa'a wa fii yadikum alinaa, hadduu midkiin u maqlo adaanka iyadoo gacanta midkiin ay ku sugan tahay weelkii uu ku sugan yahay uu cabbayey ama uu cunayey wax ka cunayey, falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu, yaanu dhigin ilaa uu dantiisa ka guto yaanu dhigin. xadiisku waa saxiixo waa sugan yahay. ha yeeshee tafsiirka xadiiska la fasirayay culammadu isku khilaafeen. ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen nidaagani kuu yahay lama sheegin, xilliguu ku saabsan yahayna lama sheegin. bacdi culammada ka mid ah waxay ku fasireen in loo jeedo adaankii maqribka, ila idaa samica axadukum annidaa'a baa la yidhi, inay subax tahay laguma qaydin. culammada qaar baa maqribkii ku xambaaray, shuraaxda qaarkood, oo waxay yidhahdeen xadiiskani wuxuu la mid yahay idaa samictum aliqaamata wa wudica alcashaa'u fabda'uu bilcashaa, haddaa iqaamada maqashaan cashadana la soo dhigo cashada ku bilaaba. qowl labaad culammada qaarkood waxay ku xambaareen in loo jeedo adaankii hore, ila adaanka dambe inuu yahay kuma qaydineen. qowl kale culammada qaarkood waxay ku xambaareen in looga jeedo adaanku markuu xilliga ka hor dhacay oo la og yahay xilligii inuu ka hor maray, amaba la malaynayo mala haaliba inuu xilligii ka hor dhacay. culammada qaarkoodna haddii laga shakisan yahayna waa ku dareen, oo waata cabdullaahi ibnu cabbaas uu yidhi kul maa shakakta xataa laa tashuka, yacni subxii marka waaga dillaaciisa halkaa intaad ka shakinayso iska cun ilaa aad ka shakin weydo. waayo allah wuxuu yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri. tabayun baa lagu xidhay. marka xaaladdii shakiga in la yska wadaayo ayaa laga qaadanayaa buu markaa yidhi cabdullahi ibnu cabbaas. taabiciinta qaarkoodna saasay yidhahdeen. marka hadduu xilligiisa laakiin adaanka dambe dhaco oo waagi dillaacay inaan la sii wadayn, daahirka aayadduna waa ku tusinaysaa, axaadiista qaarkoodna waa ku tusinayaan. oo aayadda daahirkeedu maxay sheegaysaa? haaya loo yeelo dee cunitaankii cabbitaanku ilaa haayadaa laga gaadhayo in la wadaye, marka waagi inuu dillaacay ay caddaato inaan la sii wadaynin bay aayaddu daahir ku tahay. wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri. xadiiskiina waxaa ku soo arooray nebigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yamnacannakum adaanu bilaal fainahu yu'addi xataa yu'addina bnu ummi maktuum. adaanka bilaal yaanu idiin diidin cunitaanka iyo cabbitaanka ilaa uu ka addimaayo ibnu ummi maktuum. marka ibnu ummi maktuum hadduu addimo inaan la sii wadayn baa xadiiskaasina ku tusinaya. marka xadiiska iyo aayadda labaduba waxay faa'iidaynayaan inaan la sii wadaynin ayay faa'iidaynayaan. daa'ifo yar oo culammada ka mida waxay yidhaahdeen waa la sii wadayaa, xilligaba ha waafaqdeen, oo sheikh albaani ka mid yahay. xilliyada qaarkoodna sidaa waa raacnay albaaniyo waana ku camalfallay. ashridada qaarkoodu qadiimana waa dhici karta inay kaaga soo baxdo, laakiin hadda dhowr sano sida kale ayaa noo raajix noqotay, marar badanna waa sheegnay. marka waxa weeye xadiisku maadaama ixtimaalaad kala duwan leeyahay, aayadda iyo xadiiska kalena macnahoodu uu cad yahay, ixtimaalu ku waafiqi karo adilladaa kale in lagu xambaaraa ka awulaysan ixtimaalu kaga hor imanaayo in lagu xambaaro. marka sidaas aawadeed waxay noqonaysaa lama sii wadaayo hadduu adaankaasi xilligiisii dhacay, lama sii wadayo.
amaa riwaayada la soo wariyey oo baaxisiinta qaarkood ay yidhaahdeen waxay ku tusinaysaa inaan adaanka hore looga jeedin wa kaana almu'adinu yu'adinu idaa bazaqa alfajru ziyaadada caynkaasee sidaa sheegaysaa ma asixin waayo abu hurayre kama sugna cumaaro taabiciga la yidhaahdaa sheegay waxay noqonaysaa inuu abu hurayre ka maqlay arrinkaa ma sheegin iyo inuu saxaabi kale toonna ka maqlay saas aawadeed mursalay noqonaysaa mursalkuna waa min qismi daciif mursalka taabicigu qismiga daciifuu ka mid yahay marka ziyaadada daciifada ah in la yidhaahdo ixtimaalaadkaasaan ku daafacayaayoo waxaan ku xambaarayaa in wejigaa looga jeedo dee waarid ma aha oo sax ma noqonayso marka waxa weeye sheekh albaani laftiisuna waaba qirayaaba inaanu hadalkii abi hurayre intani aynay ahayne cumaare isagu yidhi oo taabicigu hadalkan yidhi oo mursala ay tahay tamaamulminaha laftiisa ayuu ku sheegayaa marka calaa kulli xaal qowlka saxiixay waxay tahay hadduu adaanku xilligiisa dhaco amaba waagu dilaaco lama sii wadayo ee waa la joojinayaa wax afka lagu hayana waa la tufayaa ama riwaayaadka la soo wariyey kale ee sheegaya in waxa weeye iyadoo la qiimayo la cuni jiray iyo waxyaalahaas waxyaalo daciifa markaa weeye oo waxa weeye ma sugna waxaana markaa saxaabada qaarkood ay qabeen ilaa iqaamada in la wadaayo dee taasina daliilka inayna khilaafsan tahay ayaynu garanaynaa waa ijtihaad iyaga ka dhacay saxaabada qaarkoodna waa dhici kartaa ijtihaad khata'i inuu ka dhaco waa dhici kartaa xadiiska cumar laga soo warinaya laftiisa oo waxa weeye sheegaya inuu sii wadaayey yacni tilmaamaya isaguna waa daciif ma asixin wallahu aclam waa su'aal fiican weeye su-aashu waxay ku saabsan tahay gabadh baa waxay ku sugan tahay dhiiggii dhalmada nifaaskii bay ku jirtaa ramadaantiina waa u soo gashay ilmihiina dee waa nuujinaysaa maqallaa saaran mise khilaafkan baa ku dareerayo muddada ay dhiigga dhalmada ku sugan tahay ila ilmihiiba waa nuujinaysaaye waxay noqonaysaa inay khilaafkii culammadu inuu ku dareero fidye inay bixisaa qowl aqwaasha ka mida inay noqonayso wakhtiyada qaarkood waa ka jawaabnay shalay ugu dambaysay muxaadaradii waa kaga jawaabnay oo markaynu xaamilka iyo murdica ka warramaynay ayaan markaa halkaas baraarujinay gabadhu goortay ku sugan tahay dhiigga caadada ama dhiigga dhalmada ama ilma ha nuujinayso ama uurba ha sidee ila dumarka qaarkood iyagoo nuujinayaba inay dhiigga caadada helaan waa dhacdaa tii uurka lahayd ma xaydaa mise ma xaydo fuqahadu waa isku khilaafsan yihiin madaahibta qaarkood waxay leeyihiin laa taxiid hadday dhiig aragtana waa dhiig fasaad ah ma istixaadadii la xukuma madaahibta qaarna waxay leeyihiin maya waa xaydaa ee waa calaa sabiili nudra ama xadiiska soo arooroo sheegaya yani waxa weye laa tuuta'u xaamilun xataa tadaca walaa xaa'ilun xataa taxiida oo daahirkiisa laga qaadanaayo inaan xaamilku xaydaynin waa min xaysu alghaalib calaa kulli xaal gabadhii hadday dhiiggii dhalmada ama dhiiggii caadada ku sugnayd yada qalluunbaa wakhtigaa ka imanaya fidya ma sugna cibrana ma leh uur bay leedahay ama ilmay nuujinaysaa waayo ilmaha daraaddeed umay soomi kari waayine maanic sharcii meesha inuu yaallo ayaa ka ghaaliban kaasay u soomi kari weyday hadday xataa ka soomi kari lahayd ilmaha dee inay soontaa uma bannaanaateenoo maanican baa diidaya labadaa dhig haddii mid ahaan joogo soon wax la yidhaahdaa ma jirayo markaa sidaas aawadeed wakhtigaa ay dhiigga dhalmada ama dhiigga caadada ku sugan tahay ilmabaha nuujinaysee waxay noqonaysaa mid qallaynaysa laakiin hadday labadaa dhiig ka madhan tahay ilmaha daraaddeed u awoodi kari weyday oo ay ilmaha u baqday ama nafteediyo ilmahaba ay u wada baqday iyada khilaafkii baa ku jira qowlka saxiixina in shaa allaahu ee cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu cumar ay fatwoodeen ee laa yuclamu lahumaa mukhaalifun min asaxaaba sida ibnu qudaama waghayruhu ay yidhaahdeen cid saxaabada ka midoo ku khilaaftayna aan lahaynin asaaniid saxiixana lagaga hayo waa inaan qalla saarayn
ee fidya saaran tahay laakiin wakhtigay labada dhiig mid ku sugnayd yada waa inay qallaysaa si kale ma dhaqna su'aashu waxay ku saabsan tahay taraawiixda 4 ragcadood oo aan wax ataxiyaadi u dhaxayn ma la tukan karaa mise lama tukan karo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen lama tukan karo waxay daliishadeen xadiiskii saxiixa ee sheegayay salaatu leyli masna masna salaada habeenkii la tukadaa waa laba faidaa khashiya axadukum asubxa falyarkac birakcatin tuutiru lahu maa qad sallaa ragcad ha tukado witri uga dhigaysa wuxuu tukaday xadiiskaasay cuskadeen laakiin qowlka saxiixee qawigii wuxuu yahay marmarka qaarkood 4 ragcadood oo aan ataxiyaad u dhaxaynin salaaddii taraawiixda ama qiyaamu leylkii waa la tukan karaa waxaana u daliila xadiiskii caaisha ee saxiixa ku sugnaa inay tidhi nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tukaday 4 ragcadood buu tukaday falaa tasal can xusnihinna wa tuulihinna 4 ragcadood oo lam yajlis baynahunna dhexdooda aanu fadhiisan fadhigay nafyinaysaa muxuu yahay dee waa ataxiyaadkii ila fadhigii labada sujuudood u dhaxeeyey arkaanta salaadday ka mid tahoo la'aantii salaadi ma jirayso fadhigay la nafyinaye ay leedahay 4 ragcadood oo dhexdooda aanu fadhiisan buu tukaday waxaa looga jeedaa ataxiyaad aanu u fadhiisan 4taa quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiinin oo talo maxay u leedahay hay weydiinin waxay bimacnaa kama boganaayo ma wada sifayn karaya siday tahaye ha iguma ixraajinoo ha igu dhibin inaad weydiiso markaa siday ahaayeen ama waaba siiqo laga garanaayo dee inay aad iyo aad u dhaadheeraayeen una qurux badnaayeen intaa dabadeed waa salaamad naqsada haddana 4 ragcadood oo kaluu tukaday oo iyagana dhexdooda aanu fadhiisan sidii si laag ba ka timi xadiiskaasoo saxiixa ku sugan baa u daliila in 4 ragcadood laysu raacin karo iyo 4 ragcadood ataxiyaadna aan loo dhaxaysin wakhtiyada qaarkood xadiiska kalena waxaa lagu xambaarayaa salaatu leyli masna masna cala alghaalib baa lagu xambaarayaa waa sida badan ee haalibka ah wallahu aclam wuxuu yidhi waysada qaarna waa sunne qaarna waa waajib kuwii sunnaha ahaa sida markaa luqluqada iyo sandaarsiga hadduu qofku wiswisid uu biyaha ka wiswisay uga tago ka warran jawaabtu waxay tahay marka hore layskuma waafaqsanaa luqluqada iyo sandaarsigu inay sunno tahay layskuma waafaqsanaa culammada qaarkood baa qabo oo madhabu shaaficiya ay ka mid tahay inanka su'aasha keenayna madhabkiisu isagana waa sidaas oo waa inay sunno tahay sandaarsiga iyo luqluqashadu laakiin culammada qaarkood waxay qabaan oo xanaabiladu ay ka mid tahay in la sandaarsadaa iyo in la luqluqdaa waa waajib waxaynay u daliishadeen xadiiskii musii'u salaatihi waa tii ku soo aroortay wa madmid wastanshiq yacnii luqluqo oo sandaarso oo ninkii markaa salaadda qalday waxaa looga soo bilaabay weysadii marka wuxuu qaldayoo keliya looma sheegine wixii ka qaldanaa iyo wixii u saxnaa mid walba waa la sheegay marka riwaayada sidaa ku soo aroortay u cuskadeen inay waajib tahay culammada qaarkood bacdi kale waxay yidhaahdaan faghsiluu wujuuhakum bay soo gelaysaa wejiga la maydhaayo ayaa wejigiibaa dee in muuqata iyo dee in yaro qarsoon u qaybsantaa marka dee intaba faghsiluu wujuuhakum baanu gelinaynaa calaa kulli xaal daahir maaha wejigaas marka jawaabtu waxay tahay hadday sugnaato inay sunno tahay tegista ruuxu ka tago oo aanu mucaanado sunnada uu ku samaynayo cinaadayo aanu uga tegin ee wiswis uuga tegey ama wahsad uga tegey waxay noqonaysaa midaan xaraj ku sugnayn laakiin ajarku kaga nuqsaamayo ayay noqonaysaa marka biyo nadiifa ruuxu inuu ku weysaysto oo hadduu ka shakiyana hadduu doono diiriyo ayaa markaa waxa fiican marka waxa weeye calaa kulli xaal shaygii sunnaha tegista laga tago wahsi looga tagaa ama cudri kale looga taga istikhfaaf aan looga tegina dhib ma leh haye khatin su-aashu waxay ku saabsan tahay qof cudurdaar lahaa oo cudurdaar ku afuray waaba xanuunsanayey bidib buu ka awooday soonkii inuu soomi karo waanu kala ilaaway intii ramadaanee lagu lahaa iyo cadadkoodii intay ahaayeen
muxuu samaynaya jawaabtu waxay tahay waa soomaya oo waa soomaya oo waa soomaya ilaa uu is yidhaahdo iska dhammaysayo waxba kuguma hadhin oo yaqiintii uu is yidhaahdo waad haysaa qadarka ugu badan ee uu malaynayo ku xambaaro si aan dimmadiisa wax ugu baaqi noqon oo dayn loogu yeelan fa daynullahi axaqu an yuqdaa taas yadaa ilaa uu oofiyo iska dhammaystiro u yidhahdo alleela xariir baad ka noqotay waa qallaynaya waa wadaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta